محمد تشيكتين naga maqna kamar meyne hay naga maqna. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta halkan iga daawanayda waxaan idin leeyahay waqti wacan oo wanaagsan. waxa aan rajaynayaa sida aan u caafimaad qabo inaad u caafimaad qabtiin. magacaygu waa Cabdimajiid Axmed Abshir, channelkaad iga daawanaysid waa Cabdimajiidkiina. maanta waad aragtaan way ka duwan tahay fiidiyoyaashii hore, mana ahan waxaad iga barateen, balse maanta ciwaankan halkan aan ku qoray ayaan ka hadlayaa. waa heys ay soo saareen waayaha cusub, kuwaas kaasi ku karbaashayaan dowladda nabad iyo nolol ee ayagu la magac baxeen nabar iyo naxdin. heystan ayaa noqotay heystii ugu la yaabka badneed ee Soomaali soo qaato. xitaa waxay gashay heesaha ugu la yaabka badan ama ugu dislike badan ee adduunyada laga qaaday. shacabkii Soomaaliyeed ama wixii magaca Soomaaliyeed ahay inay hal dhinac isku raacaan, hal dhinac wada boortaan, waa wax la yaab leh. aniga halkan uma soo istaagin ama fiidiyogan idinkuguma soo bandhigayo ama idinkuguma soo gudbinayo in aan ka hadlo ama warbixin ka baxsho ama war aan ka dhiibto dhinaca loo batay iyo dhinaca laga batay, macnaha muxaafid iyo mucaarid. balse insha allahu tacaala waxaan idiin soo gudbin doonaa 3 qodob ayaan idin faahfaahin doonaa. waa maxay sababta uu fiidiyogan ku noqday sidaan, macnaha heystan sababta ay ku noqotay inay intaan dislike gasho, maxaa sababay. sidoo kale sidee bay reaction uga bixiyeen ama falcelin uga dhiibteen youtuberska ama dadka kale oo caanka ah oo dadka indhaha u ah. iyo midda ugu dambeeydan kusoo gabagabeyn doono maxaa ku dhacay waayaha cusub, isla markaasna haddana ku soo socdo oo ku dhici karo haddiisan ka gaashaaman maxaa ku dhici karo. 3 qodob ayaan idin faahfaahin doonaa intaan fiidiyogan ku guda jirno. ugu horeyn marka waa maxay wax sababay in fiidiyogan oo sidaan noqdo oo intaan dislike helo, intaan mucaarad helo. maxay ahayd haddii lacala xitaa ay inay soo dhigaan ama inay soo bandhigaan ee ahayd, maxay ahayd inay uga gaashaamtaan waayaha cusub ahaan. waxa sababay heystan horta waa heys lagu dhaleeceynayo ama looga soo horjeedo dowladda. sidaa awgeed xaaladda ee dowladda isla hadda ay taagan tahay ama marxaladda hadda dalka uu ku jiro ayaa sababtay in sidaan usii kaco. waxaa jira heeso sidaan oo kale lagu diidan yahay ama looga soo horjeedo dowladda, kuwaasoo ay fanaaniin hore soo qaadeen, balse sidaan oo kale macnaha ayaga xitaa waa laga soo horjeestay oo fanaaniintii sumcad xumo iyo magac xumo way ku dhaxday, balse sida kuwaan oo kale ku dhaxda kumaysan dhicin. isla qaabkan oo kalena maysan ahayn. waxaa ka mid ah fanaanka caanka ah Ilka Case wuxuu soo qaaday hees la yiraahdo heestii ahayd igu sawir, isla markaasna waxaa ogeynay inuu asagiina ku dhaxday sumcad xumo iyo magac xumo. fanaaniintan ayagana fanaaniin kale way jiraan, balse fanaan caan ah oo sida macnaha ama fanaan miisaaniyad ku leh dalka ama dadka si fiican ay u yaqaaniin waa fanaaniinta labaad aan ku tilmaami karaa, ama kolkii labaad ee fanaaniin miisaan leh ay soo qaadayaan hees ee dowladda lagu soo horjeedo. waa jiraan fanaaniin kale oo yaryar, laakiin macnaha maadaama fanaaniin iska yar ay yihiin dadku waxba kama aysan soo qaadin, balse kuwaan maadaama fanaaniin miisaaniyad dalka ay ku leeyihiin, dad badan yaqaanaan, taageero badan ay lahaayeen, taageerayaashooda ayaa kasoo horjeestay, dhahay waxa aad noo keentaan ama waxa noo soo jeedinaydin wax jira maahan. fiidiyowga inaa aad iyo aad ugu dheeraada ma rabo, balse intaasoo xaaladood ayaa sababtay inay maxaa lahaa ay disliketan badan hesho fiidiyowga. midda labaad marka sidee bay reaction uga bixiyaan ama falcelin uga dhiibteen youtuberska ama dadka kale caanka ah heystan dowladda looga soo horjeedo.
youtuberska badankood ama dadka badankood sida dislike-taba ay ku cadeeyeen dislike-ta. sidoo kale youtuberska badankood waxay ka dhiibteen reaction ayay ka bixiyeen. waxay cadeeyeen dhammaan youtuberskaas in heestan dhammaan youtuberskaas waxay cadeeyeen in heestan ay tahay in heestan dalka looga soo horjeedo ay tahay hees qalad ah, aysan mudnayn in la qaado. marka aniga dhammaantood inta idinkuguma soo bandhigi karo, balse waxaa idiin soo bandhigayaa kuwa qaas ah iyo sababo qaas ah oo isheeg maxaa lahaa a idinkugu soo bandhigayo si aa uga ogaatiin. ugu horeyn waxaan ku hormarayaa yarkan la yiraahdo Munasar. waa isagana youtuber xoogaa sidaasoo kale barnaamijyo qurxoon ayuu ka diyaariyaa dowladda ama waxyaabaha kale oo dhanka bulshada ah. marka asaga sooma wada qaadanayna videogiis, laakiin qeybo kamid oo muhiim ah kasoo qaadana kuwaasoo dadka badankood maskaxiyan ay isweydiinayaan, micnaha wax maskaxdiisa ka gooxayo ayaa waxaa rabaa in waxa ay ka dhexeen dadkan youtuberska ee reaction ka bixiya ama dadka kaloo caanka ah inaan idin tuso, kadibna aan faahfaahin ka baxsho. waxaan ku horeynaa marka yarkan Munasar lahaayo. yarkan marka video uusan qofka daawanin. waxaa aragnay waayaha cusub inay soo geliyeen video qaadnay. waxaa qabnaa inaan fahamno hadda maxaa loo gudbo waayaha cusub soo geliyeen waxaa loo gudbo kaa qaado walaalkay Ibrahim ka waxaase wax jira marka aan idin baro ninkan oday waxaa la yidhahdaa engineer Abubakar. Abubakar waa engineer ku takhasusay culuumta. Munasar wuxuu noo soo fariisiyey yar ku takhasusay siduu sheegay computer science-ka, yar ku takhasusay computer science-ka IT-ga. marka su-aalo ayuu weydiinayaa. su-aasha uu weydiinayana waxaa waaye haddii aan macnaha si fiican idinkugu haddaan idiin soo gudbiyo, waa maxay sababta videogan oo intaanoo dislike ku helay, waa maxay sababta videoga intaan dislike ku helay iyo sababta ama iyo qaabka viewska videogan iyo dislike-gaba uu yaryahay videoga. waan ka gudbinayaa su-aashan idin sheegay waxaa aragnay waayaha cusub inay soo geliyeen video. horta Munasar waxaa suurtagal video aana kelig la dhihin in dislike la dhaho, ma suurtagelayso. videoga waxaa horta youtube-ka kamid ah markaa rabtid inaad dislike ama like saartid waa inaad horta marka hore kelig ku dhahdaa, macnaha si aan like tiraahid ama dislike ku tiraahid si fiican. marka suurtagal ma ahan views oo macnaha videogiisa meeshaas aan ka hadlo hadal yaraan ka dhahayaa. horta yarkani waa yar siduu sheegayo engineer IT ama computer science, micnaha wax warbixin badan ama IT-ga computer science-ka khibrad fiican u leh. balse markii aan youtubers nahay ama youtubers ahaan viewska ma marka qaar adinka la idin soo bandhigayo ama adinka aa arkaydiin waa ka duwan yahay kan annaga gudaha noogula soo bandhigayo, micnaha channelka gudihiisa kan lagu soo bandhigayo ee keen banaanka waa ka duwan yihiin. marka qaarna waxay isa saxaan oo viewska si saxa u fariistaa 2 maalin kadib. viewska channelkaaga wuxuu u fariisanayaa ama videogaas aad soo dhigtay si sax wuxuu u fariisanayaa 2 maalin kadib oo u fariisanayaa. marka isla sidoo kale teeda kale waxaa jiro videoga haddaa adi soo gashid oo macnaha 3 meelood 2 meel camal haddaadan fiirsan ama hal meel camal aadan fiirsan views uma tiid videogaas, waa ku dhufatay kadib waa kasoo laabatay. marka dadka badankood waxaa laga yaabaa in videoga ay galeen, markay videoga ay arkeen heestan nacnacleeda iyo waxeeda ay ka heli waayeen, kadibna dislike ay ku dhufteen, kadibna kala laabteen ayagoo qof walba oo dhamaysan. sidaasoo kale marka qofkaas views maahan videogaas views ma ahan. haddii laakiin kala bar aad fiirsidoo kale videoga kala bar haddaa daawatidoo kale, markaas waxaa tahay views u xisaabsan videogaas ayaa taa. marka arrintaasaan ka dhihi lahay.
ma jiraa fursad kaloo siinaysa qofka inuu soo galo oo dislike inta taabta soo fiirsan daawashada inuu iska xiro taas marnaba suurtagal ma ahan macnaha dib maba shuruudaha youtube-ka maba ahanba waxaa inaad dislike dhahday ama like dhahdid adoona daawanin oo arkin marka waa inaad click dhahdaa si markaa dhahdid ama dislike ama like marka yarkan wuxuu sii raaciyey Munasara wuxuu sii weydiiyey qofka ama qofka userka ama qofka daawanaya videogan intuu videoga daawado videoga viewskiisa miska xiri kara macnaha daawashada asaga views ahaan loo qori lahaa halka mar loo qori lahay miyuu iska xiray haddana kadibna dislike muu saaray taas aqli gal maahan qofka videoga daawanaya wax uu video ka sameyn kara ama wax uu ka bedeli kara male ilaa in comment uu ka dhiibto like iyo dislike uu saarto kadibna share uu dhaho hadduu daawado waa daawaday kama soo celi kara marka sidaasi waxaa waaye ugu gashay ama u xisaabsan tahay videogaas marka Munasar intaa ugu gudbeynaa youtuberka labaad aan soo qabanayo yaa idin soo qabtay youtuberka labaad aan idin soo qabanayo waa youtuberka labaad aan idin soo qabanayo waxaa waaye ama youtubeka labaad waxaa waaye Adna channel ama Adna waa taqaanin waa gabar youtuberada laba channel ay leedahay sidaan filayo Adnaheena iyo Adna channel marka videogan waxay soo dhigtay Adna channel ay soo dhigtay ayada iyo seegeeda saxaaf ayaa waxaa waaye xogaay ra'yigooda ayagana ka dhiibanayeen marka ayagana warbixin yariis aan ka soo qaadanaynaa saxaaf marka su'aal ayuu weydiin rabaa Adna weydiin rabaa su'aashii marka waxay noqonaysaa ayaan kaga warbixin soo jiray maxaa la gudboon inuu sameeyo waxaa la gudboon ama in dislike iyo like to iska xiro haddii ay noqotay in commentiga qofka lagu soo garaaco commentiga iska xiro adna waxaad leedahay dislike iyo like kaligood waa la iska xiri karaa commentiga kaligiisna waa la iska xiri karaa goona sidana meesha marka ayagana ra'yi yar ka bixiyo qofka youtuberka ama channelkaas youtube-ka soo channelkaas videoga soo geliyay wuu iska xiri karaa dislike iyo like wuu ka qari karaa inkastoo viewska qofka youtuberka uu qari karo views kama qari kara ama haddaan youtuber ahay views kama qari kara si kastaan yeelo balse dislike iyo like waan ka qari karaa sidoo kale waan xiri karaa commentiga waa iska xiri karaa sidoo kale commentiga intaan xiro aan kuwii aan jeclahay oo amaanaya soo bandhigi karaa idin soo dhaag karaa intuu sikraa kuwii caayana waa idinka qari karaa laba marka intaas baan sameyn karaa haddii aan youtuber ahay marka waxaan filayaa in waayaha cusub dadka video kusoo geliya youtube-ka in aysan macnaha si fiican youtube-ka ama IT ahaan ama teknolojiyad ahaan ee warbixin badan ka haysan sababtoo ah way filayaan ani sida ahaan filayo way filayaan in videogan saan oo noqonayo maxaa yeelay channelkooda gudaha u galay videoyaashii kan ka horeeya soo dhigana arkay heesta marka finaal walba markii uu macnaha soo qaadi rabo wuxuu u sameeyaa commensuun u sameeyaa ayaga markaa 4 commensuun camal oo studio-da ay kasoo duubeen aan arkay afartana midkiiba hadii cirka u boodo 9 second ka kooban waa video iska yar oo iska soconaya 9 second ka kooban marka video walba marka afartaas video oo ka horeeyay videogan waxaa waaye like-tooda iyo dislike-tooda waxaa badan dislike-tooda badan marka ayaga xitaa wadii fikir lahaayeen xisaabta inay sii gashtaan ay ahayd in videogan uu noqonayo video dislike-giisa badan yahay waad maqlaysaan adna commentka qaar xataa waxaa jira meel commentiga laga xiraayo oo adiga kasoo baxbaxsanaysa mee waxaa rabtid inaad soo jeesanaysid kuwa aan rabinna meeshooda aad ku reebaysa laakiin dadna ay arkin oo adiga waa kaas cadna marka iyadana waa ka gudbeynaa waxaan sii galaynaa youtuberka afraad in soo qabanaa asagana waa kinsiiki marka waay hadda haddii aad fanaan tahay tan tusaale ku noqoto afkaaga in aad dal ku dhisto maahan ha isku dayin afkaaga in dalkaaga aad ku burburiso kan isagaa burbursan dhismo u baahan yahay mar kale aan kugu celiyo kinsiiki asaga waxaa waaye wixii fanaan ah ayuu waxaa waaye ra'yi fiican siinayaa marka fanaan ahaaw ama wariye ahaaw ama qof kaloo dadka ka dhex aana oo dadka indhaha u ahaaw ogaaw in aad tahay inaad soo bandhigto
waxa bulshada markaas ay xiiseynaydo, waxa bulshada markaas ay jeceshahay inaad ka hadasho, warbixin fiican ka dhiibto waa. haddii bulshadii ama shacabkii wixii ay jeclaayeen aad kasoo horjeesato, ogaaw dadkii adiga aaleyd inaad lumayaan aad noqonaydo qof micnaha ama fanaan dadka dhan ay naceen oo kale ay noqonaydi. dadkan waa dad caanay ahaayeen, badankood waxaa waaye dad oo awal heese badan soo qaaday, wadanimada micnaha heese badan kasoo qaaday, heese badan usoo qaaday dalka ama calanka usoo qaaday. waxaas dhan waxaa waaye badankood waa lagu taageersanay, balse videoga markay soo dhigeen janalkooda soo geliyeen dhulka ayay galeen. intay xitaa soo dhigin ka hor, hal asbuuc ka hor mase 2 asbuuc ka hor ay commentskooda dhigayeen, intaasba social media ama Facebook oo dhan waa lagu dhaleeceynayay. waxaa waaye waa lagu caynayay, waa lagu fadeexeynayay. kadibna hadda markay soo dhigeenba inay shacabka inay ballan sii wada galeen loo malayaaba. waxaa waa hal mar ay ku wada yaaceen. videogana asoo 5 hours ku jira waxaan soo dhigay storyga facebookiga. marka videogan isla markii isla 5 hourski ama 15 minutes kadib markaas ku horta aan soo dhigayo wuxuu ahay 43 uu maray 43kii ayuu maray. isla markii aan soo dhigay oo maxaa la ahaa aan soo dhigay 15 minutes kadib haddana fiirshay videoga intuu marayo wuxuu marayaaba 15k 50k oo dislike ayuu marayaa. marka xitaa waxaa waaye 5 hours ku jiro dislike maray. haddana maxaa filayda waxaa waaye wayna xireen saacadan dislike laagtu iska xireen. marka waxaan filayaa in uu kasii batay oo meel kasii sareeyo gaar. waxaad kala garataa mucaarad iyo muxaafid. dal kastaa mucaarad iyo muxaafid leh, balse dal isagiiba u baahan inuu lugtiisa ku istaago aan taagnayn maxaa ka mucaaraday. dulqaad aan ku dhamaysta ma haystin oo aan ku sii socdo ma haystin bas muhiim. marka asxaabay videogiina inaan iska soo gabagabeeyaan rabaa. xoogaa waxaan filaa inuu ugu yar dheeraaday, hadhow editingkiisana dhibaata igu noqonaydaa. marka arrinta ugu dambeeyda aan kusoo gabagabeynaya waxaa waaye maxaa ku dhacay ama ku dhici karo waayaha cusub. horta waxaa ku dhacay shaqada weynaa ku dhacday ayaga dhexdoodiia maxaa la dhahaa waxaa waaye kala tegay. dalmar uu ka baxay siduu sheegay, siduu kusoo cadeeyaba facebookiisa. sidoo kale digriyo waxaa la warinayaa inuu asagana sidoo kale uu ka baxay. sidoo kale ayaga dhexdooda awal videoga dislikegiis waa muuqday, laakiin hadda way qariyeen. laakiin horta mashaqadan ugu weyn waxa u keeno waxaa waaye dislike ay muujiyeen. haddii lacalla ay kasii gaashaan ma lahaayeen dislike ay qari lahaayeen, wax youtubera ah oo reaction ka bixi lahaa ma jiraan, wax dad oo ku dhaxyaaci lahaa ma jiraan, wax sirjinka ka raadi lahaa ma jiraan. intaasba ma qabsaleen mashaqadaas. videogadana si tartiib u kala kici lahay, laakiin waxaa waaye dhibkaas hadda u sababay. balse hadda waa iska xireen. waxaana filaa marka oo hadda la filayaa inay ka saari doonaan xitaa youtube-ka ayaga dhexdooda. maxaa yeelay youtube-ka channelkooda dhibaato badan ayuu usoo keenayaa. waxaa suurtagala in channelkooda hadhow uusan dad badan gaarin, xitaa videoyalkan markay soo dhigaan oo kale in channelkooda uu subscribe-ka hoos u dhaco. waxyaaba badana marka la filaa. marka halkaasaa iskaga keenaa videoga. tan iyo intaan ku kulmi doono videogan videoga xiga waxaa idinka tegayaa. intaan idinka tegi ka hor channelkan haddaa ku cusub tahay walaalo subscribe saar, sidoo kale gambaleelka furo, sidoo kale videogan likes ka saar. maadaama uu ka hadlayo video dislike lasoo saaro, bilcagsi ka dhig like ka saar. waa xushmadan kaaga hayaa. videogan haddii suurtagal tahay ii share garee. waxaan idinka tegayaa intii aan kulmi doono videogan video xiga. sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.